waxa la isgaarsiin oo qabtaa ma jirto kan la yiraahdo wasiirka amadu waxa ma qaraya isgaarsiinta waxa la isgaarsiin oo qabtaa ma jirto ayaa soo fadhiistay kan ila koorado isagoo u fadhiya waxba dalka kuma tare dadkoodana ma tigi karo marka deliberate waxay si caada in dadka la laayo ay dhaahon reer haan loo laayo in deegaanka waa dadku meel xaafadu kala degan yahay mid adag kale leeg baan ku yiri ma doon saadimati meeshan ka horayay hay inta ili doliin la habeen dhantaan doonaya inta in ma yaqaan qayrkay aniga xabad la dhici lahaa أنا بالعهوة مسكيني نني دور في اليوم وكل فاد بقاله يجي لي محاضر كانت حدوين المجال قالوا نبغى نضل إيوه لمشاء إيوه صنعات إيوه مستقبل إيوه الله عليه وحفظ كاس أنا أخر من تاس المجرد هذا أنا مكارين تاس ضدك كمسؤول كا عن الشرع ولا مريم الصومال وكلا عرسته ولا لا يقال قف كي توكتي موتي ولا أكيد أنت بيرك هذا ولا كان المدرك أنا بيه أنا بيش ولا كان أكيد كتوكت ولا كان كيب جمبري لان كروسك أنا كيان ولا كان أنا ورتدو وحوي بنبحة إيو هذا كحرطة هذا كحرطة الدستور كان ساق يحنو الشيء وحشر أنا يوم إنه دولة الأويسيو راح تطلع دقيقة صدح من الكهر سي أمنية مظاهراتين بس مظاهرية أمنية مجال وإلى عليها لكن ما شرع ما أورانيو دولة دميرشا أيدي عبرتو واحد سنة يوم وكسور شيء وضبك حير كاسي كونستيوشن دستورك حير كسور شيء أنا حير بمها لقى الوصاصة شرعي لو يقانا بقى نك وسيلة علمها جدا كتشرها كاهن ورغب صور وحي وفي أنت يسكو كان عينه حبك نبت جريه صعود عيو يقولها تيجي سان كل شيء كيسانه أنت أنا كوس عني سوق نب بالنتي أيو ده مركا هذا مريسو markay balanti ka hadii qolada wadani way diiday waxay ninka haduu bardadka naga xidhay adeeg waxa loo tagnaa ma jirto way anaga ciidaha ila anaga u taginaa idinka inaga idin betelina saasan markaan u tagnay markaan maalintii hore si fiican baan u wada hadalnay wasna wax iska dhigeen mas'uula waxaan ku heshiinoon beelaha ay ka dhacayaan isla eegno isii nabadgelyada maalintii ku xigtay ayaa qaar wasiiro oo madaxweynaha isku qolayeen oo iska dhigaya sidii loo sheegay Mareykanka kan la yiraahdo wasiirka amadu waxa ma qaraya isgaarsiinta waxa la isgaarsiin oo qabtaa ma jirto ayaa soo fadhiistay rasuul buu maalintan ku heshiinay way hal bedelo sabta laga dhigo ay khamiisteen yaa ku heshiiyay maalintii ku leeyahay halkaas horta marka naga dhacay marka halkaan marso haddaan ku kala kicleen magaalada maalinta waa kicleen marka ana waxaan la hadlay niman isku dhow yihiin ninkan madaxweynaha oo war haddaan maanta lagu kala tago meesha Soomaaliya qasba gelisay ninka waxa taayaan uu kala tagin fadhiga ka xule ma taqaanaa wasiirka isku sheegay isgaarsiinta iyo kan ila koorado isagoo u fadhiya waxba dalka kuma tare dadkoodana ma tigi karo waa qortaa un dee magaalada cashuurteena waxa la wax dalku taraan xasaradaheena iyo isku dir aan ahayn meesha ma joogo kaas iyo qaar kale oo wasiiro bin aqbala macna ahayo ayaa meesha joogo ka soo urursan meesha markaas oo telefoon ku soo dhacay kaahin oo la baxay anaga wax ma ku soo noqday neerada ayaa qoladina macaarid waan sugnay ma ku soo noqday maalinta waa ogolaan marka waxaan filayaa inuu kan u daba dhigay waxba kuma tale ina bixi
laba baamicna moogtay ayaa la soo hadlan filayo laymankii aan sameeye ka shaqeeyey waxaan ku heshiinay markaa in arrintii doorasha ay bahasha dhacdo mudaaharaadka u dhaco xafiiskayaga iyo xafiiska ay ku leeyihiin wadani halka magaalada dhexdeeda halkaa u dhow meesha la yidhaha beerta xorriyadda u dhow ayaanu ku heshiinay saasaan ku kala nimay alxamdulilah markii dambe dee ninkan iska hadla ina kaahin oo soo hadlo yidhuun waxay bahasha waa ina ka dhacday qolya meeshan u bixiyey duruqsi xafiiska fogfogay dambe laga galaaba berent meesha helicopter kusoo gashaa maayo gaarigu ma tago qoladan waxay ku adkaysanay inay meelihii hore ka sameyso subaxdii markii arrinta dhacday laisku soo baxay halkaa jiica la yidhaha baanu isku nimi dadka oo dhami yimaadeen markayba dad inan bay ku toogteen meelaha iskuulka maxamed axmed agtiisa markaan aragnay aan arkay dee arrinta u socoto halkaas arrinta u socoto ayaan isiri de haddana hadday halka ku adkaysataan aad go-aansateen dhimasho way badnaan doontaa dalkuna khatar buu geli doonaa nimankana dal iyo dhimasho iyo sumcad iyo mustaqbal iyo wax allaale wax 40 sano u kordhay nimankaas ma jirto markaasaan dadka kala hadlay gaari dushii waxaan ina mariya halka ay yidhaaheen duruusi xafiiska wadan halkaasaan dadka badbaadiyo ka talowno dooxiyo saylada marnayo dee markaa meesha ku soconeen marino halkaa ina artiila agtiisaasa isbitaalka laga dhigay anu leexanay xaggan ku socono xafiiskii wadani ayaa saas nagu bilaabay iyo bahamayn dhaha iyo gaagsha marka boliisku waa laba oo qolana qabiil ahaan baa la yidhi amar gaar la soo siiyey qolana waxay ku socdaan nidaamkii hore ee nidaamka hay'adda boliisku inuu nidaamka ilaaliyo oo kuwina talaabiya dhulka dhashay halka waxaa lagu soo jiray qoladii la qabiileeyey ee lagu sheekeeyey dowladda inay ridayaan reer hebele markaan ku leexanay wadadii u leexanaysay markaas rasaasu bilaabata haddana markaa deliberate waxay ahayd si caada in dadkaa la laayo ay idhaahoon reer ahaan loo laayo in deegaanka waa dadku xaafidu kala degan yahay markaa waxaa qorshe la qorsheeyey oo madaxtooye laga qorsheeyey oo dad gaara inta halala shiray oo yidhi saaya markaa nasiib daraasaa dhacday alxamdulilah laakiin khasaaro wuu ka badnaan lahaa haddaan ku adkaysano inaan tagno xafiisyadii khasaaro ka badnaan lahaa dadkuna waxa ugu dhici lahaa badee madaxtooyada huyuuji dadku aada buu soo baxay dhalinyaro ay ahaayeen dhimashadaba garanayn markaan halkaa tagnay dee xafiiska aan tagnay ayaa haddana dhalinyarta yidhaha ilowna celiya waana tagnaa meesha waa linaga daaya mid adag kule leeg baan ku yidhi maad doonsaa dhimatid meeshaan kaa horayahay haya inta ili doliin lahaa bayna dhintaan doonayaa wi inta ilmayo qayr ka yahay aniga xabad ila dhici lahaa anoo baahuba iska celin de markaan soo baxay kii hubkana weydiisay hubna si feesa hubna si hose wayna ku masaxay wayna hubsabeen wayna soogeyn doonaa aan ku maslaxay moogta wayna soogeyn doonaa oo kaaliya wayna dili aniga wayna dili gaarin ayaan ku dejinay hadaan halkaasaan maranayo marka hada nasiib daraasaa dhacday anagu de waa dalkan in badan baanu soo taagnaa